adduunyadan aan ku noolnahay bani aadamka aad la nooshahay waxyaalo fara badan oo kaa yaabiya ayaad la kulmaysaa. bal caawa waxaynu isla eegaynaa sida ugu wanaagsan ee ugu fiican inaad ula dhaqanto dadka aan adiga ku ixtiraamin. waxaa laga yaabaa in saaxiibada ama dadka adiga kugu hagaarsan bay ku jiraan dad adigu aad ixtiraamayso laakiin iyagu marna aan ku ixtiraamayn. maxaa kula gudboon markaas? sidee inaad ula dhaqanto qofkaas? midda ugu horeysa, qofka haddaad aragto inuusan adiga ku ixtiraamaynba afkaaga ka xidh. wax alla waxaad ku darsataa yuusan jirin, waayo wuxuu doonayaa qofkaasi daraamada noloshiisa ku jirta inuu adiga kula soo doonto. midda kale markuu arko inaad afkii ka xidhatay oodan juuq u odhanin oo yacni dadku moodaya uusan ku moodin, aakhirka isagaa ku ixtiraami doona. no respond at all. midda labaad, qofka noocaasa ee adiga aan ku ixtiraamayn, waajib kaa saaran inaad noloshaada iyo mustaqbalkaaga iyo yoolkaaga iyo waxa aad damacsan tahay uga sheekayso ma jiro. mar walba iska ilaali inaad qofka noloshaada bannaanka u soo dhigto. noloshaadu uma baahna dad tiyaatir fadhiya oo ku dhegaysta. waxaasi waa wax adiga kuu gaar ah. midna ogsoonow, madax bannaanidaada adigu aad madax bannaan tahay eed wax kasta si madax bannaan aad u qabsan karto ayaa dhibaysa qofkaasi mar walba la socdo. midda saddexaad, inaad naftaada difaacdo macnaheedu ma aha inaad qofka necab tahay. waxa weeyaan oo keliya inaad naftaada maskaxiyan, qalbiyan iyo jidhba aad u badbaadinayso. midda kale, qof noocaasa oo aan adigaba ku ixtiraamayn, marka hore waxaad ula socota ayaaba gardarro ah. tusaale yar baan idin siinaya. waxaa jiri jiray shaksi anigaanu ahaan jirnay saaxiib, sida isaguu sheegaya saaxiib baan ahaan jirnay. shaksigaas waxaanu kulmi jirnay wiigii 2 goor ilaa 3 goor baan iska sheekaysan jirnay. markaan kulmi weynana telefoonada iyo waxaasaan ku wada hadli jirnay. mar alla markaan qofkaa la kulmo, wax alla wax wanaaga oo dadka kale iska daa uu sheegaya ma jirto. wax alla waxay fiicanay noloshaada ku soo kordheed u sheegtana wuxuu mar walba ka aadayaa dhinaca xumaanta. waxaan bilaabay qofkii anoon goyn gebigiisaba inaan bishii mar la kulmo. intuu iga maqan yahay waxaa i soo marta hawo aadan weligaa iyo allaha arag. noloshaada hadduu ku jiro qof aan ku ixtiraamayn, ma aha inaad naftaada u baabi'isa isaga. mana aha cadowtinimo sidaan kuu sheegay inaad nabadgelyadaada aad mar walba ilaaliso. noloshaada qofkaasi ma ku jiraa? ka fogow intay goorigoor tahay. saaxiibadaadaad ka naxaysana sidii caadada inoo ahaan jirtay videogaas gaadsii. 100% waan idin salaamay meel walbood caalamka joogtaan. waad